asalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeya dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo yoweri museveni oo qaaday tillaabooyin lagu hirgelinayo heshiiska difaaca ciidamada ee labada dowladood iyo sidoo kale tillaabooyin ka dhana Kenya iyo Ethiopia. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu hor istaagay qorshe la doonayay in shaqada looga ceyriyo saraakiil hayb qabiil iyo mid siyaasadeed loo bartilmaameysanayay maxaa ka jira in ay aada iskugu dhow yihiin xubnahaasi madaxweyne farmaajo wasaaradaha ay ka tirsan yihiin. halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xiisada somalilan ee arrimaha dibadbaxyada oo mar kale cirka isku shareertay, ciidanka oo loo daabulay wadooyinka muhiimka iyo goobaha looga yaabo inay dibadbaxayaashu ay ka sameeyaan dhaqdhaqaaqyo ka gedisan midka hore ay ugu baaqeen. mukhtaar ruuba waxa uu ku dhawaaqay arrin cajiib oo ku aadan sida uu qabanayo shaqada dowladda, dastuurka ma ixtiraami doonaa. waxaan idiin haynaa sidoo kale sida ula macaamili doono wadaadada ahlu sunna wal jamaaca oo qaarkood weli ay hubaysan yihiin. abiy axmed waxa uu xaqiijiyey in isbahaysi ciidan iyo mid siyaasadeedba uu la leeyahay madaxweyne farmaajo. maxaa ka jira in ogolaasho gobolka gedo ay kusoo galeen ciidanka Ethiopia? faahfaahin ayaan idinkaga haynaa. dowladda sacuudi carabiya cadaadiska ugu weynaa ayay ku haysaa madaxweyne asiyaas afawaa kadib markii ay ka carootay safarka sagaalaad ee xasan sheekh maxamuud. Ethiopiana diblomaasiyiin ka tirsan ayaa arrintaasi kasoo dhex muuqday. goor hore ayay dibaaldeg sameeyeen labada murashax ee ugu horeeya doorashada codka la dhiibtay ee dalka Kenya. waxaan idiin soo gudbin doonaa Ruto oo goor horeba sheegtay inuu yahay madaxweynaha ku cimaamatay doorashadii ka dhacday dalkaasi, halka Raila Odinga iyo xubnihiisuna ay niyad jabsan yihiin balse ay ku dhawaaqeen inaan aqbali doonin wax walba oo natiijada la xiriirta hordhaca. inta daawateen oo qodobada wararkeena daawada kusoo dhawow subscribe-na saare channelka dhambaalka wararka, sidoo kalena qaybta isla page-keena follow gare oo share gare muuqaalkan haddii uu kusoo gaaro, sidoo kalena aragtidaada nagu reeb qeybaha commentiga ee channelka iyo sidoo kale youtube-ka. intaba aanu ku bilowne madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweyne yoweri museveni oo hogaamiyey jamhuuriyadda Uganda ayaa mar kale waxay gaadheen heshiisyo lagu cusleynayo iskaashiga militari ee ka dhexeynaya labada dowladood iyo sare u qaadida wada shaqeynta hay-adaha difaaca ee labada qaran. yoweri museveni ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay u baahan tahay cutubyo dheeraad oo ka tirsan militarigeeda, waxauna soo saaray qiimeyntii ugu dambeysay ay tahay in mas-uuliyiinta Soomaaliya ay isticmaalaan isagoo ka duulaya badka iyo baaxadda dalku uu leeyahay ee dhinacyada biriga iyo badda. ayuu xaqiijiyey in loo baahan yahay 80,000 oo askari ilaa 150,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada difaaca, kuwaasoo u baahan in si degdega tababaradooda loo bilaabo iyadoo weliba aan lagu bilaabayn hanaanka boqolaalka askari ee la tababarayo, balse loo baahan yahay in tababaradu ay noqdaan kuwo markiiba loo xiro kuminaan askari, ugu yaraan 5,000 oo askari in loo bilaabo tababarada si loo gaaro lambarkaas fog ee ciidamada difaaca. waxa uu sheegay in Uganda ay bixinayso qayb ka mid ah ciidanka militariga, gaar ahaan kuwa naftooda hurayaasha isla markaana gelaya howlgal militari oo ay ku saacidi karaan Soomaaliya kuna garab istaagayaan ciidamada SNA, balse dhaqaalaha looga baahan yahay inuu noqdo mid ka yimaada saaxiibada caalamka ee Soomaaliya. labada hogaamiye ayaa hoosta ka wada xariiqay sidoo kale in sare loo qaaday iskaashiga, iyadoo weliba heshiisyadu ay ahaayeen kuwo ay kasoo dhex muuqanayeen qodobo lid ku ah xiriirka Soomaaliya ay la yeelanayso Kenya iyo sidoo kale Ethiopia. madaxweyne yoweri museveni ayaana jeclaysan in qaadka Kenya uu si rasmi ah ugu soo daadguroobo Soomaaliya, isagoo sheegay in dhaqaalaha u dhaawacayo. dibadbaxyada ay qorsheeyeen mucaaradka isla markaana ay hogaaminayaan taageerayaasha xisbiyada ayaa si rasmiya kaga bilaabay guud ahaan deegaano kala duwan oo ka tirsan Somaliland, iyadoo xukuumaddu ay adkeysay dhaqdhaqaaqa isla markaana la diray cutubyo ka tirsan ciidamada booliiska, kuwaasoo loogu talagalay in meelaha qaar ay ka hor istaagaan dibadbaxayaasha, halka meelo yar oo mucayimana loo ogolaaday in ay dibadbaxayaashu iskugu yimaadaan oo halkaas qaylada iyo orkaba ay ka oogaan ay ku muujinayaan afkaartooda siyaasiga ah. cabdiraxmaan ciro oo ah gudoomiyaha ama musharaxa xisbiga madaxweynaha ee xisbiga wadani ayaa ku dhawaaqay in maanta ay tahay maalintii kaamiradu ay shaqeyn lahayd lana duubi lahaa dhammaan tacadiyada ay geysanayso xukuumadda Muuse Biixi ee lagula kacayo dadka shacabka ee dibadbaxyada dhigaya.
qaar ka mid a saraakiisha booliiska ayaa waxay sheegeen in mucaaradku ay wataan maleeshiyaad la doonayo in ay toogasho ku bilaabaan ciidamada booliiska iyo kuwo loo diyaariyey in ay boobaan hantida dadweynaha, taasoo ay sheegeen inay tahay mid ka dhigan in dibadbaxyadu aynan ahayn magaca ay wataan kuwo ku salaysan ee salmiga ah. waxayna soo jeediyeen in si rasmi looga hortago cid walba oo loo arko inay dibadbaxyada ay dabada ka riixayso. dhinaca kale, xubnaha xisbiga UCID ayaa iyaguna taageerayaashooda ku wargeliyey in ay si degdega dibadbaxyada uga qeyb galaan, inkastoo taageerayaasha xisbigaas ay weli si rasmiya aanan u qaadin qorshahan oo ay u muuqdaan kuwo labalabeynaya, maadaama Faysal Cali Waraabe uu maalmihii lasoo dhaafay xagala daacin sida la aaminsan yahay uu ku hayay dhaqdhaqaaqyada jiray, inkastoo afka ay ka midaysnaayeen labada xisbi. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxa uu ka hortagay qorshe la doonayay in shaqada looga ceyriyo saraakiil sarsare oo hayb qabiil iyo mid siyaasadeedba loo beegsanayo, islamarkaana lasoo shaqeeyey dowladii hore ee Soomaaliya. xubnaha iskugu jira shaqaale iyo agaasimayaal ayaa la qorsheeyey in shaqada laga ceyriyo, weliba wasaaradaha ayaa si gaar ah u diyaarsaday, waxaana qaarkood loogu talagalay in loo bedelo ujeeddo ah in wasiirada iyo xubnaha kale ee xukuumadda imaanaya ay ku bedelaan shaqsiyaad iyagoo ay wataan oo kambeynkooda siyaasadeed qeyb ka ahaa, halka sidoo kale kuwo kalena loo beegsanayo in ay ka tirsanaayeen dowladii hore oo ay la shaqeyn lahaayeen. wasaaradaha maareynta musiibooyinka oo hadda arrimaha haweenka iyo dhinaca loo bedelay, iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda, kuwa arrimaha gudaha iyo amniga ayaa ka mid ah goobaha sida gaarka ah diradda loogu hayo. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka duulaya in lagu xadgudbo muwaadiniintaas ayaa soo saaray xeer mamnuucaya in wasaaraduhu ay shaqada ka tiraan ama ay isbedel ku sameeyaan xubnaha mas-uuliyiinta ee saraakiisha shaqeynayay, waxaana usoo jeediyey in shaqsi walba oo shaqada laga bedelayo ama la shaqaalaysiinayo uu noqdo mid soo raaca habraaca sharciga ah ee shuruucda shaqaalaha ee wadanka, iyo sidoo kale la tashi lala sameeyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre. waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu amar ku bixiyey in wasiiradu ay ka fogaadaan ku-tagrifalka hantida dadweynaha ee dowladdu ay leedahay, isaga oo hoosta ka xariiqay in arrintaasi ay noqonayso mid cawaaqib xumo laga dhaxlo. ra-iisul wasaaraha ayaa usoo jeediyey golaha wasiiradu inay ixtiraamaan sharciga iyo dastuurka dalku leeyahay. Abiy Axmed ayaa muujiyey in uu xulufo la noqday xubno kala duwan oo iskugu jira mucaaradkii dowladii hore iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilligan ay mideysay doon siyaasadeed oo u socotay dhinaca wadanka Itoobiya. saraakiil ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa warbaahinta gudaha ee dalkaasi waxay u xaqiijiyeen in ay jiraan shaqsiyaad kala duwan oo deegaan ahaan iyo sidoo kale beel ahaan intaba xilligan taageeraya howlgalka Itoobiya iyo qorshaha lagu wanaajinayo waxa loogu yeeray xiriirka labada dowladood. xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa hoosta ka xariiqday inay haysato taageerada iyo ogolaanshaha madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Gedo, kuwaas oo ayagu dalbaday in cutubyo militari ah oo ka tirsan ciidanka Itoobiya ay gudaha usoo galaan gobolkaasi. xulufadan waxa ay sheegtay in ay hogaaminayaan xubno uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilligan u arka in gobolka baylaha badan ay ka jirto, islamarkaana dowladda xilligan ka jirta dalka aynan ku filnayn in ay ka ilaaliso dhibaatooyinka dadku ay la kulmayaan ee dhinacyada ka imaanaya ururada hubeysan iyo Kenya oo daris la. Itoobiya waxay hoosta ka xariiqday in ciidankeedu aynan ahayn kuwo kusoo duulay gobolka, balse ku yimid rabitaanka dadka iyo sidoo kale xiriir ay la sameysay mas-uuliyiinta deegaankaas. waxay sidoo kale hoosta ka xariiqday in uu jiro ogolaasho iyo wada hadallo toos oo dhex maray dowlad goboleedka Jubbaland ee aagaasi ka arrimiya, maadaama wasiirka wasaaradda amniga Dhumaal uu horey u sheegay in Jubbaland ciidankaas ay taageerayso. xulufada ay yeesheen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sii xoogeysanaysa, waxaana kusoo beeray dowlad goboleedyo marka hore mucaarad ku ahaa filla Soomaaliya xilligii Farmaajo uu joogay, oo ay ka mid yihiin Puntland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo xilligan ayana u muuqata inay usii janjeersatay dhinaca wadanka Itoobiya.
mukhtaar robow cali mansuur ayaa waxa uu ku dhawaaqay tillaabooyin uu qaadayo kuna aadan sida ay u shaqeynayso wasaaraddiisa iyo sida uu doonayo in uu u maareeyo khilaafaadka kala duwan ee ka taagan xilkan loo magacaabay. waxauu hoosta ka xariiqay inuu bilaabayo kulamo uu la yeelanayo culummada Soomaaliyeed islamarkaana si degdega loo bilaabayo kaas oo lagu turxaan bixinayo khilaafaadka iyo kala aragti duwanaanta ka dhexaysa dhinacyada kooxaha siyaasadda iyo sidoo kale caqiidada intaba wada huwan ee qaarkood ay hubeysan yihiin kuna wada sugan gudaha Soomaaliya. waxa uu sheegay wadaadkan in uu si toos u bilaabayo fadhiyo uu la yeelanayo isaga oo durba doonay sidii uu la kulmi lahaa hogaanka wadaadada Ahlusunna wal Jamaaca oo iyagu kasoo horjeeda Robow kuna tilmaamay in aynan aqbali karin xilka loo magacaabay maadaama uu ka mid yahay shakhsiyaadka ay la soo dagaalameen. waxa uu wadaadkan sidoo kale ballan qaaday inuu si degdeg ah shaqadiisa u bilaabayo inkastoo culays weyn uu ka haysto in uu dib ugu laabto deegaankiisa iyo inuu booqdo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada oo ayagu goor horeba u arka in Robow deegaankooda uu mamnuuc ka yahay ayaa haddana waxa uu ku dhawaaqayaa in uu laba jibaarayo. la tashiyada uu ka wado magaalada Muqdisho ayaa ahaa kuwa sii xoogeysanayay saacadihii lasoo dhaafay islamarkaana uu kula kulmay xubno kala duwan. dowladda Sacuudi Carabiya ayaa ugu dambeyntii waxay cadaadis weyn ay saaraysaa Xasan Sheikh kadib markii ay ka carootay safarkiisa sagaalaad iyo halka uu ugu baxayo waxaana sidoo kale cadaadiskaas mid la mid wajahaya madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki ayaa waxaa la dul saaray cadaadis ka imaanaya dalalka Carabta oo ku cadaadinaya in uunan fasixin cutubiyada ciidanka Soomaaliya ee ku sugan gudaha dalkiisa kuwaasoo dowladda Itoobiya ay u aragtay inay ku biirayaan khatar weyn oo ka jirta Soomaaliya islamarkaana dowladda federaalka loo baahan yahay in ay la timaado damaanad rasmi ah oo ku aadan in ciidankaas aynan khatar ku noqonayn ciidamadeeda ku sugan gudaha Soomaaliya iyo guud ahaan howlgalka ka socda gudaha dalka ee lagu xaqiijinayo nabadgelyada. Siyaas Afwerki ayaa loo soo bandhigay sida xogtu ay tilmaamayso lacag gaaraysa 80 milyan oo dollarka Mareykanka ah islamarkaana ay bixinayso dowladda Sacuudiga taas oo la doonayo in dib loogu dhigo cutubiyada ciidamadaasi inta labada dowladood ay is-afgarad iyo sidoo kale heshiisba ay ka gaarayaan. inkastoo Sacuudigu siyaasadiisu ay tahay mid loogu awrkacsaday xaaladda Itoobiya iyo Soomaaliya haddana waxa uu kasoo horjeedaa safarka sagaalaad ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu ku tagayo dalka Qatar halkaas oo uu doonayo inuu ka helo dhaqaale. xog la helaysa waxay tilmaamaysaa in madaxweyne Siyaas Afwerki arrintaas uu ku gacan sayray kuna wargeliyay dowladahan in ay jiraan heshiisyo iskaashi oo ka dhexeeya labada dowladood isla markaana dhowaan ay tahay in si rasmi loo dhaqangeliyo. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Eritrea ayaa la filayaa in dhowaan ay si hordhaca usoo gaaraan Soomaaliya ka hor inta ciidamadaas aan lasoo daabulin. arrintaas oo noqonaysa mid sii xoojisa heshiisyadii iyo xiriirkii labada dowladood ay horey u bilaabeen. madaxtooyada Asmara ayaa xogta laga helayo ee laga soo xiganayo warbaahinta gudaha ee dalka Eritrea waxaa xaqiijinaysa in Eritrea ay ka go-an tahay inay xoojiso xiriirka ay la leedahay Soomaaliya iyadoo meel la iska dhigayo wax walba oo caqabad ku noqon kara xiriirka labada dowladood iyo labada bulsho. gudaha daawada intaas waxaa ku dhan warkii oo kaaga imaanaya dhambalka wararka ee nabadgelyo.